qofna ma fahmi karo sadarrada buuggan ilaa kuwa mar dareemay murugada iyo xanuunka kala tagga. Haddii aadan ka mid ahayn dadkaas, muuqaalkan iska dami, dibna uga laabo fidyowga. Magaalada jacaylka ma jirto waxaan ka naabahay noloshayda hordhacyada dhaadheer ee buugaagta iyo dadka dhibta leh ee iga dhex gala wakhtiga aan wax akhrisanayo. Qofna ma awoodo inuu kiciyo naxariistayda sida qorayaasha sawirkoodu saarta daboolka buugaagtooda. Laakiin aniga marka aan dhammeeyo buuggan, waxaan iska qaadi doonaa sawir ama huwaag oo aan saari doonaa daboolka buugga sida laaluush yar oo aan ugu talagalay gabadhaas maqan misena aan jeclayn akhriska. Waan ogahay inaysan rumaysan doonin indhaheedu haddii ay sikadiisa ugu aragto jildiga ama daboolka buugga sawirkayga. Waan ogahay inay muddo yar ku jahwareeri doonto ilaa inta xaqiijinayso waxay aragto. Shaki badan kadib waxay hubin doontaa in sawirka ku yaalla buuggu uu yahay ninkii ay mar jeclayd. Kadib ay ka tagtay iyada oo aaminsan inuusan weligiis la wadaagin jacayl, iyada oo ay dadka ka baqanaysay. Mar walba waxay moodaa in la eegayo, lana og yahay waxa maskaxdeeda ka socdaa. Waxaan si kalsooni leh u ogahay inay si qarsoodi ah uga qaadan doonto buuggan khaanadda maktabadda sida qof wax xaday. Marka buugga gacanteedu galana way baaladaymo doontaa midigteeda iyo bidixdeeduna si ay hubiso in waddooyinka maran yihiin. Kadib si tartiiba ayay u furi doontaa oo u baadhi doontaa bogaggiisa si taxaddar leh, sida tuugta ku fadhaya waxa uu xaday meel dadweyne joogaan. Marka indhaheedu ku dhacaan bogga hadiyadda ah, waxay ku dhawaaqi doontaa qaylo lama filaan ah oo dadka soo wada jeedin doonaan, sidii iyada oo aan rumaysan in nacaskii mar kasta iska dhaantareeyey misna uu u muuqday qof wax dan ah ka lahayd. Uu yahay ninka qoray buuggan weliba iyada darteed, si uu ugu sheego inuu ka xun yahay wixii dhacay iyo inuu weli jecel yahay. Haa, waan ku jeclaa sidaan weligay wax kale u jeclaan, laakiin waxaan wax ka bartay nolosha markii ay igu dhufatay dhirbaaxo si lama filaan ah. Waxaan bartay inaan qariyo dareenkayga oo aanan cidna tusin, sidii qof dembi galay oo raadkiisa qarinaya. Laakiin hadda kadib, markii dhaqanka iyo xeerka ay igu diideen inaad ila haato oo waxa kaliya ee aan kugula kulmi karo ay tahay riyada, ma rumaysan karo inay jirto waddo kale oo aan kugu sheegi karo waxa qalbigay ka buuxa, marka laga reebo habkan adag oo khatar badan oo laga soo maray. Saacadda wareegta ee miiskayga dusha saaran waxay tilmaamaysaa 2:15 habeennimo ee kala tagga. Aniguna waxaan fadhiyaa balakoonka gurigeenna, kursigii qadiimiga ah ee alwaaxa ahaa, kaasoo aan had iyo jeer ku wada sheekaysan jirnay, aniga oo dusha ku dul fadhiya. Qalin ayaa dhegteeda dul gashan, horteedana waxa yaalla xashiyo cadcad oo fidsan. Mar kasta oo aan ka fikiro, dabayshu way kacdaa oo waxay si xad dhaaf ah u salaantaa geesaha waraaqaha, sida xanuunka xiisaha aan ku qabo oo kale. Waxaan xidhayaa indhahayga, gacmahayga qabow dartii ayaan isku dhex gelinayaa, madaxaygana kor ayaan u qaadayaa anigoo eegaya cirka. Waxaan ku celinayaa hees si deggan oo la mid ah iftiinka dayaxa qalalan ee deganaanta ku muuqato, kaasoo iftiiminaya hareeraha. Heestii wacanay ayaamahan wakhtigii aan joogniyo oo agii caddaadaba naftayda degto welweligu abuurtee anooda jirkeenniyo jecelo heshigeena. Markii aan dhammeeyey heestaas, indhahayga ayaan u furay, madaxaygana hoos ayaan u furuuriyey, gacmahaygii isku xidhnaa ayaan kala furay. Shamac ayaan shiday si ay xarafyadu si fiican uga muuqdaan warqadaha. Qalin rasaas oo dul saaran dhegtayda ayaan soo saaray, kuna bilaabay inaan wax ku qoro. Waxaan dareemay wax iga taagan dhabarkayga. Markaan ka fiiriyey isaga oo ka muuqda indhahayga oo aanan dhaqaajin madaxayga, waxaan arkay sawirkaaga oo mar kale u yimid sidii caadada ahayd, si uu u fiiriyo waxaan ku qori doono. Si murugo leh ayaan u dhoola caddeeyey oo iska dhigay inaanan ogeyn waxa uu samaynayo.
maxaa yeelay waxaan ka baqayaa in haddii aan u jeedsado uu ka dhunto sidaa caadadeeda ahayd. Gacantayda si tartiib ah ayaan uga soo dhoweynayaa warqadaha anigoo u cabsanaya sida ina yara oo markiisii ugu horreysay gacanta u fidiyey abeeso oo kale. Waxaan ku fikirayay wax yar go'aan qaadasho kadib waxaan ku bilaabay magaalada jacaylka ee ka caagan waxgaradka. Markaas ayaan bilaabay inaan qoro sidee tahay, sidee bay yihiin maalmihii aniga la'aantay, ma ka adkaatay inaad ka gudubto maadada adag, ma way kuu egtaa sawirkayga si qarsoodi ah ka hor intaadan seexan, ma joojisay inaad subax walba magacaaga ugu horreeya ku qorto muraayadda dahabka ah ee derbiga ka hor intaadan u bixin jaamacadda. Ma ogtahay in noloshu noqotay mid caajis ah aniga la'aanta, sida hawl shaqo oo aan dhammaystirnayn. Ma ogtahay inaan kuu xiisay. Waxaan ogaaday intii aan ka maqnaa in kala taggu mararka qaar uu noqdo mid faa'iido leh, waayo wuxuu naga dhigaa inaan dareemno qiimaha dadka aan horay uga dhindhatirnay, kuwo kalena ku kala tagnay ka hor intaadan fahmin inaan noolaan karin iyaga la'aantood. Haddii aad ii soo laabato, waxaan kuu ballan qaadayaa inaan ku jeclaado si ka wanaagsan. Waxaan ahaa mid aan ka fiirsan ka hor inta aadan kula kulmin, iyo sidaa ii kale ee dhulka Carabeed, misna garaacayo qalbiyo oo jabiyo nafsiyo iyo ruux, misna si fiican u yaqaana beenta haweenkan loo sheego, ilaa aan gaadhay heer anigu rumaystay beenteeda marar badan. Ma aanan ahayn mid daacad ah ilaa aan la joogay saaxiibadii mooye, ma aanan ahayn mid run sheega ilaa aan la joogay saaxiibadii mooye, ma aanan ahayn bini aadam ilaa aan la joogay saaxiibadii mooye. Ha yaabin, waayo inta badan ragga bari waxay sidan u yihiin. Had iyo jeer dagaal ayaanu la galnaa dumarka, sida ay u muuqato inay jirto nacayb hore oo u dhexeeya iyaga iyo dumarka, ama utun soo jireen ah oo keentay inaanay la heshiin. Taasi waa sababta keliya aad ugu aragto gabdhaha ugu baahan. Iyadu waa gabadh jecel nin bariga ah, waayo waxay dhaqan ka dhigteen tegitaanka lama filaanka ah, waxayna ka taagaan iyagoo aan la iska ogeyn, waxayna soo noqdaan marka ay nolosha albaabadeeda xidhanto. Mar walba waxay u arkaan inay xaq leeyihiin, adduunkuna uu jiro iyaga keligood, oo aanu dhulkoodu toosnayn ama hagaagayn iyaga la'aantood. Galabta, hooyadii waxay igu ducaysay in Ilaahay iga dhowro xumaan oo dhan, ina hibeeyo wax kasta oo san ducadaasi way igu dhacday oo adigaan ku helay. Markii indhahaygu ay la kulmeen indhahaaga, ayaan gartay inaanan bad ku jiro, gartay inaanay jirin meel lagaga baxsado duufaanta jacayl ee igu soo waajahan. Way i kala kaxaysay oo dib ayay u umuurtay. Adiga waxaad leedahay indho dabin oo kale. Qof kasta oo ku fikirayay uu ku dhex dhacay dabinkaas. Kaalay aan sir yar kuu sheego, aamin yar ayaa ka soo wareegtay kulankeenii, balse dhammaan dadkii ka horreeyey waan ka saaray qalbigayga. Keligaa adiga ayaa dhex tegay, iyadoo aanay jirin cid kula tartamaysaa. Waxaad gebi ahaanba tirtirtay xasuustayda dareen, taasoo ay ka buuxeen dumar aan islahaa marnaba ma iloobi doontid. Adigu waxaad igu qasabtay inaan kugu qariyo adiga keliga, aniga oo ahaa nin aanay hal gabar ku filnayn raginimadiisa, waayo gabadha aan la heli karin ee buuxin doonta booskaaga. Waxaad kor u qaaday rajadeeda ganacsanaanta ilaa aan kuwada aaminay oo aan cid kale raaligeliso ay noqotay arrin adag, sida ay u adag tahay inaad hesho wiil beri ka yimid oo guursaday. Markaad gabar qurux badan weydiiso ma xidhiidh baad leedahay, inuu ugu halceliyo haa, waxaa jira hal qof oo keliya, markaan la kulannana isaga ayaan garanaa inuu Alleh raalli inaga yahay. Maxaa yeelay waxaan u jeclaa si dhab ah, waxaan go'aansaday inaanan ku ciyaarin iyada, waxaan garaacay albaabka gurigooda, mana aanan ka imaanin daaqadda.
jacaylka dhabta ah wuxuu ka yimaadaa albaabada guryaha, mana ka yimaado daaqadaha. hase ahaatee, jacaylkan oo aan ku waarin sheekooyin hore mooye, waxaa khasab ku noqonatay inay u halgamaan kala tegeenna. waxay u qabteen jacaylkeennii si dhaqso ah, waxayna u kaxeeyeen garoon wax lagu dilo. waxay u dhiseen tiir si cadownimo leh, waxay u fushiyeen kursi wareegaya, waxay ku duubeen qoortiisa xarig adag, markaasay ka laadeen kursigii uu ku taagnaa, iyadoo aan wax fursada siin si uu jeediyo rabitaankiisa ugu dambeeyey. waa uu dhacay jacaylkii. ka hor intii aanay cagihiisa dhulka gaadhin, xariggii ayaa qoortiisa ku sii jiismay ilaa ay neeftu qabatay. waxay sugayeen wax yar. markii ay u malaynayeen inuu dhintay, ayay ka tegeen isagoo hawada ka laalaala. aniga iyo iyada ayaan ku soo harnay fagaarihii. waxaynu eegnay jacaylkeennii annagoo argagaxsan sidii ilmo iyo gabadh yar oo arkayay dhimashada waalidkooda oo dhowaan lagu xukumay dil, welibana si dulmi ah. laakiin si lama filaan ah ayuu jacaylkii indhihiisa u furmay oo uu noo soo eegay, isagoo dhoola caddaynaya misana noo tilmaamaya inaanan hadlin. waxa uu soo fidiyey gacanta, isagoo furay xariggii qoortiisa kaga duubnaa. mar kale ayuuna soo eegay, waxa uuna noo soo diray dhunkasho hawada ah. markaasuu noo iljabiyey oo uu duulay cirka, isagoo ku hagaaninaya waad idiin soo noqon doonaa. isku mar ayaanu ku niriyey innagoo qaylina goorma, laakiin wuu sii duulay oo kama uusan jawaabin. hoogadii miyay ogaadeen inay jacaylku uusan u dhiman karin daldalaad, oo uusan u dhiman xabad. hoogadu may ogaadaan in jacaylku yahay shayga keliya aynaan garanayn sida uu ku bilaabmo, iyo inuu yahay shayga keliya ee marka uu bilaabmo aan garanaynin dhammaadkiisa. intii dhibtaasi oo dhan la mari lahaa, waxay ahayd inay jacaylkeenna ama geliyaan oo ay faraha ka qaadaan miinaakhin hadalkii nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaadee. ma arkin wax ka fiican guurka dadka isjecel. kala tegeennii kadib aad ayaan u shalleeyey gacaliso, maxaa yeelay waxaa jiray jacayl weyn oo qalbigayga ku jiray oo aanan ku tusin adiga. aad baan u shalleeyey maxaa yeelay waxaa jiray hadal badan oo ku hurday dibnahayga oo aanan kuu sheegin. kala tegeennii kadib waxaan ka shalleeyey mar kasta oon ka xanaajin jiray iyo mar kasta oo aan kaa gaabiyey. haddii aan ogaan lahaa kala tegan ay maalmuhu inoo qarinayeen, malaha waxaan ahaan lahaa mid caqli badan, mid xanaaq yar, mid xakamayn badan, mid xigmad badan, mid faham badan iyo mid jacayl badanba. laakiin waxay u muuqtaa inay weligay casharkan baran doonin. waxaan sii ahaan doonaa sida dadka kale ee aanan aqoonin qiimaha waxay haystaan ilaa ay ku lumaan gacmahooda. ma xasuusto intii uu kala tegeennu socday. waxay yidhaahdeen sannad, laakiin qalbigaygu wuxuu ku adkaystay in 100 sano ahayd. maxaan sameeyey adiga la'aanta? maalin kasta si gaabis ah ayaan u socdaa, sidii diin caajis ah oo markii uu daalay go'aansaday inuu u socdo dhinaca kale ee dunida. waan ka xumahay inaan kaa tegay oo aan ku dayacay xilli ay waajib igu ahayd inaan adiga dartaa u noolaado, u dagaalamo. waan ka xumahay, waan ka xumahay, waan ka xumahay. beriga ayaa i baray inaan fulay ku noqdo jacaylkaaga, deeqsi ku ahaa dhaawacyadaada, bakhiilna ku ahaa dareemahaaga. markii aan kala fogaanay, mid ka mid a saxaabteydii ayaa yidhi ha murugoonin, maxaa yeelay arrinka muuminku had iyo jeer waa khayr. laakiin waxaan ku yidhi ii sheeg, xaggee ayuu khayrku kaga jiraa maqnaanshaha? ilaa iyo inta codkaygu aanu kugu imanin oo aanu ku soo gaadhin, waan sii wada doonaa qoraalka. waxaan buug kasta ku qori doonaa sir aan qof adiga ahayni ogaanin. maalin maalmaha ka mid ah waxaan noqon doonaa caan. ogowna maaha jacaylka aan caannimada u qabo, balse waa si ay kuu suuro gasho inaad wararkayga ka hesho telefishinada. haddii aan awoodi waayo inaan caan noqdo, waxaan ku kici doonaa dembi weyn. maaha argoosi bulshada ka dhan ah, laakiin si ay kuu suuro gasho inaad wararkayga ka hegto jaraa'idadeeda iyo wargeysyadeeda. maxay ugu yaraan wakhtiga kugu filan kugu siin waayeen si aad ii macsalaamaysid? waxaad ku tagtay si lama filaan ah,
aniga oo aynaan ka heshiin kala tagan miyaan isdhiibaa mise beri waan kulannaa miyaan joogaa meeshaydii mise waxaan fidiyaa shiraacayga oo waxaan ka taagaa dekedaha sugitaanka aad baan uga cabsanayaa inaan iska tago haddii aad beri ku soo laabato meeshan oo aanad iga helin raad iyo ciwaan midna kadib markaad isku daydo inaad raadkayga raacdo waxaad arki doontaa tallaabadeeda oo tirtirantay markaad dadka ka waraysato xagga aan ku dambeeyana waxay kugu celin doonaan weydii ciida gacaliso waxaan ku sigtaa inaan waasho markaan ka fikiro ninkaaga mustaqbalka oo fadhiya isla kursiga aan anigu ku fadhiyo ee meherada aan ku kulmi jirnay dharkiisa cusub ee la kaawadeeyey ama la feereeyey iyo cimaamadiisa uu ka amaahday walaalkiis iyo cadarkiisa uu uraya sida kaba cusub oo kale iyo saacaddiisii dahabiga ah ee aan muujinaynin wakhtiga saxda ah ma garan doono in qalbigaaga anigu leeyahay iyo inaad aniga daacadii tahay sidee ayuu kuu arki doonaa marka ugu horreysa ee uu ku arko ma awoodi doonaa inuu wejigayga murugada leh ka arko indhahaaga iyo ilmada ku taalla dhabanadaada iyo magacayga oo saddexan ee ku qoran debnahaaga sidee ayay noqon doonaan haddii aan guursado 10 sano kadib gabar ay dadku ku sheegaan inay tahay gabadh qurux badan sidee ayaanan adiga ahaan iyada u arki doonaa sidee ayaanan ugu yeedhi doonaa magacaaga sidee ayaanu la istaagi karaa iyada agteeda anigoo hortaagan muraayadana aan iska arko aniga oo keligay taagan iyo adiga oo aan agteeda taagnayn muxuu ii daba joogaa udgoonkaagan meel kasta aan tago udugaagu waxa uu soo galayaa xubnahayga waxaana uu igu soo celinayaa xaggaaga aniga oo aan rabin si laga awoodo roonaado sida maxbuus dagaal maxaa kaaga dhex arkaa wax walba siday wax walba si kadisa u noqdaan adiga 2 maalmood ka hor waxaan fadhiistay badda horteeda anigoo aamusan ayaan eegayay shaaca qoraxda dahabka oo dul saaran biyaha sikadiisa ayaan kaga dhex arkay adiga oo boodboodaya hirka hir sidii jilaaga badda awowgii kalluumaystaha ah ee iga sheekayn jiray mar kadib waxaan ku arkay adiga oo fadhiya mid ka mid a dhagaxaanta badda timahaaga dhaadheer ee midowga ahna fidsan yihiin misena aniga isoo eegaya eegmadaadii xiisaaga gacalka lahaa in yar kadib waan ku waayey muuqaaguna kama uusan muuqan dhagaxa mana aadan ku noqon kaboodidii hirarka maxaad marar ila muuqada taa marmarna iga qarsoontaa ilaahayow xasuustu way i taabatay adiga u naxariis badane i naxariiso aynu qiyaasno maxaa dhacaya haddii aan 20 sano kadib si lama filaan ah meel ugu kulanno aniga oo la socda qoyskayga ballaaran ee ahayd inaad adigu sabab u noqoto adiguna uu ku ag taagan yahay nin aanan weli qalbigaagu rabin misena aan ugu yeedho magacaaga maxaan samayn doonaa markaan fiiriyo carruurtaada kuwaasoo laga yaabo inaanan ahayn ilmahaygii iyo kuwaadii jeclayd inaan dhalno aniguna u malaynayo inaan aniga cid aanan ahayn u ekaan doonaan maxaa ku dhici doonaa markaad aragto ilmihii aan dhalay oo kuu soo gurguranaya koo fulaya cagahaaga madaxiisana kor u qaadaya indhahaagana eegaya marba marka dambeysa markasta ayuu soo jeedsadanaa oo indhahaygu mar kale fiiriyaan kadib dib ayuu kuu eegaa adigoo u qoslayaa sidaas isaga oo helay sirteennii weyn oo wuxuu kugu yidhaahdaa cod u eeg miyaw dabisada gaajaysan hooyo maxaa dhacaya haddii uu qadarku inagu qoslo kadibna uu inoo ogolaado 2 daqiiqo inaan ku qaadano wiishka dhismayaasha dhaadheer maxaad ii odhan doontaa sidee ayaad ii eegi doontaa ma kuu sheekayn doonaa mise ma awoodi doono maxaa yeelay waxaad noqotay nin kala gabadhiisa ma jiro wax ka xanuun badan ragga marka laga qaato gabadhiisa oo aan doonaynin cid kale ma ii sheegi doontaa inaad weli iga fikirayso aniga ma ka xumaan doontaa dharkayga ma ka heli doontaa qaabka weli timaha aan u jarto ma igu dheehan doontaa walwalkayga iyo sawirkayga wejigayga ku saaran si naxariis ah ma u eegi doontaa ciradayda soo dhacday oo timahayga ka soo goday ma iga dheehan doontaa
magacaaga oo afaran ee igu qoran fogaanshaha qoraalaha ku wareegsan indhahayga. Ma idhan doontaa weli waan ku jecelahay mise waad i dhaleecayn doontaa sababtoo ah waxaad igu aragtay anigoo la jooga haweeney ay waraaqaha dowladduna ku sheegayaan inay tahay xaaskayga. waxaa lama huraan ah inaad sii diyaarisid hadalkaaga aad odhan lahayd marka uu qadarku inoo diyaariyo kulan labaad 20 sano kadib, welibana isla wiishka dhismayaasha dhaadheer. kulanka waa inaad diyaar u noqotaa sababtoo ah jacaylkaygiiye qadarku wuxuu jecel yahay sahradda jacaylka. haddii aad halkan soo gaadhay, qaybtani waa qaybtii koobaad. qaybaha kalena insha allah waan ku soo hejisiin doonaa. waxaana kaa habsanaynaa channelkan Xijira Jacaylka aad subscribe saarto, like-na aad saarto si aad u aragtaa inaad boogan sii wadno. qaybta commentigana waa muhiim. commenti iyo like waa muhiim, isu dhiirigelin badan aan uga helno. mahadsanidin, waana soo badin doonaa insha allah.